السلام عليكم. أبو قاسم عباس ابن فرناس ابن ورداس ninkii ugu horeeyay ku fikray inuu duulo hawadana galo kana dhabeeyay ee duulay muuqaalkan maanta waxaan kaga hadlaynaa waa kuma Cabbaas ibn Farnaas. fadlan haddaad nagu cusubtay subscribe saar si aad noola socoto muuqaalada dambe daawasho wacan. أبو قاسم عباس بن فرناس wuxuu ku dhashay magaalada Ronda ee ku taallay Andalus waqtigii dawladdu Umayyadeed ka tanisay wuxuuna ka dhashay qoys Amaaziga wuxuuna noolaa intii u dhaxaysay sanadii 810 ilaa 887 miilaadiga wuxuuna ku koray Qurtuba ama magaalada Granada loo yaqaan hadda Spain dhacda wuxuuna wax ku bartay isla magaaladaas Qurtuba waxaanu bartay falsafada chemistry iyo xidigiska waxaanu ka agdhow boqoradii waqtiga Andalus ka tin jiray Umayyadeed ahaa sida Xakam bin Hisham iyo wiilkiisa Cabdiraxmaan iyo wiilkiisa Dalana Maxamed loo oran jiray heer boqorkan hadda soo sheegnay magaciisa Cabdiraxmaan loo oran jiray oo Cabbaas u magacaawday macalinkiisa dhanka xidigiska waxaana Cabbaas ibn Farnaas waqtiga lagu yeedhi jiray xaakimkii Andalus waxyaabo sameeyay caanka ahaa waxa kamid ah saacad ku shaqeynaysa biyaha waxa kale uu sameeyay qalinka khad kale oo la sheegay inuu ahaa kii ugu horeeyay ee qalinka khad kale sameeyay waxa kale uu bartay dhirta iyo qaabka lagu daweeyo dadka bukaanka waxaanu ku daweyn jiray dadyoga xanuunsanaya ku noolaa waqtiga Qurtuba wax soo saaradiisa kala caanka ah waxa kamid ah in uu dhagaxa ka sameyn jiray muraayad ama dhalo soo kale xataa wuxuu sameyn jiray muraadaha dadka indhaha xanuunaya loogu talagalay xidhan ayuu sameyn jiray dadka bukaanka indhaha xanuunaya waqtiga Qurtuba ku noolaa cilmigaas oo dhan Cabbaas ibn Farnaas wuxuu ku tilmaamay inuu ugu adeegay ummadda muslimiinta uu ugu fudeydinay hawlo badan Cabbaas ibn Farnaas qolo jaahiliin ku soo eedeysay sixir iyo gaalnimo laakiin aakhirkii markii maxkamadda la soo taagay iyadoo dadkii oo dhan wada joogan bari ayuu ka noqday sixir iyo gaalnimada ay eedeynta loo soo jeediyay haddaba waxyaabihii ugu waaweyn lagu xasuusto Cabbaas ibn Farnaas ayaa ah in uu baadad samaystay kadibna hawada galay ninkii ugu horeeyay hawada galayna waxa sanadii 875 ayuu ka dhibay Cabbaas fikirkiisa ah inuu bini'aadamku duuli karo ama uu hawada geli karo wuxuuna samaystay laba baad oo miisaankiisa qaadi karo culeyskiisa qaadi karo kadib ayaa la isku yeeray dadkii magaalada joogay si ay u daawadaan bini'aadamkan duulay Cabbaas markaa meel dheer ayuu fuulay kadib ayuu duulay waanu guuleystay muddana ku jira hawada laakiin dhibaato waxa ka timaaday sidoo u degila ama dhulka u tegila muddo markuu hawada ku jira aakhirkii soo dhacay dhaawac yarna soo gaaray dhabarka ka soo gaaray laakiin aakhirkii ka bogsaday Cabbaas ibn Farnaas wuxuu geeriyooday Ilaahay u naxariistay sanadii 887 miilaadiga waxaana lagu tilmaamay qofkii ugu horeeyay ee ku fikray inuu samada galo kadibna duulo meelaha lagu magac daray waxa kamid ah airport ku yaala waqooyiga Ciraaq oo lagu magac daray Cabbaas ibn Farnaas soo kale hay'adda NASA la yiraahdo oo qaabilsan Mareykanka hawada sare ayaa ugu magac dartay Cabbaas ibn Farnaas god ku yaala dayax waxa kale oo Baghdad looga dhisay taalo lagu magac daray Cabbaas ibn Farnaas hoostana kaga qorantay ninkii ugu horeeyay duula Carab ah ka soo jeeda Andalus inkastoo Cabbaas ibn Farnaas Amaaziga asalkiisu hooyadii abihiiba Amaaziga ahaayeen dadka waqooyiga Afrika dega ee Carabta ahayn sanadii 2011 koodii Juun waxa magaalada Granada Spain ku taalo laga furay bridge aad weyn oo lagu magac daray Cabbaas ibn Farnaas bridge-kan isla qaabku samaysan baadashii oo kale Cabbaas ibn Farnaas samaystay iyadoo magaalada Granada ku faanaysan Cabbaas ibn Farnaas oo ku dhashay isla magaalada muuqaalkana maanta intaas ku eegi fadlan hadduu ku cajabay subscribe saar siina share gare wasalaamu calaykum.